الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدح يا سقاشنات يا كتاب كيني حكم وفوائد من روايع الإمام ابن القيم رحمه الله. إشراقة القلب. هل كان وحن كحسينا معلومة أما حكمة وشيخ وشيخ ابن القيم عوان وحالو قد إشراقة القلب قلبك النور كيسة iftiinkiisa. shuruuqa waxaa la yidhahdaa wad aragteen markii qoraxdu ay soo baxayso oo kale ayaa la yidhahdaa shuruuq. marka ishraaqa waa shay iftiimaya. markay qalbigu muxuu la iftiimaa, maxaa iftiimiya, maxaase mugdi ka dhiga. idaa ashraqa alqalbu binuuri taaca, haddii qalbigu uu ifo nuurka taacada darteed uu la ifo, waxaa qalbiga soo aadaya سحائب وفود الخيرات إليه من كل ناحية. أقبلت سحائب وفود الخيرات، وحا قلبي سو آذي حقيسة خيرات كي يا خير أوردن وحيابة أو سيدا ضرورة أو كلا با قلبي حقيسة سو آذي لنعول بك إيمانيا. فينتقل العبد مركا قفكي ينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. markaasaa ruuxa isaga qalbigiisu ifay wuxuu ka guurayaa daaco, mid kale usii guuri, mid kale usii guuri, mid kale usii guuri. maxaa jira qalbigii ayaa nuuraya. marka daacaba daacay kuusii dhiibaysaa wey. sidaa cagsigeeda ama ubasiidka kasoo horjeeda, waidaa adlama alqalbu bidulmati almacsiya, haddii qalbigu mugdi noqdo, wuxuu mugdi ku noqdaa macsiyada ayuu mugdi ku noqdaa. أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية. وحادنا قلبي سوء آذية لنع والبوحة ضرور مودد أو بلدي يشركي يدباتي يدنبي أو دنبا لنع والبكاقة إيمانية. وحون نقول مركا قفكا فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في الظلام. وحون نقول يا سيدي قف إن دلاء أو هجب سنية أو مجدي لحديث الصعودة. qof indhala oo habeen bar keligii meel gudcura maraya, qaabka uu lugaha u taagtaagsada ama marba meel ugu dhici oo mar god ku dhici oo marba kaasoo kale u noqonaya. fayantaqilu saaxibuhu min macsiyatin ilaa macsiya. markaasaa qofkaa isagii wuxuu noqonayaa mid marba u kala gooshaya u kala guuraya macsiyaba macsiya usii dhiibaysa. macsiyadu macsiya usii dhiibaysa. ibnu qayim kitaabkiisii addaawa dawaa yaan hadda ka hor waxaan kusoo marnay inay macaasida isu dhasho oo midba mid bay dhashaa, sida daacaduba isu dhasho oo mid waliba midda kale ugu yeedhanayso. hadduu qofku salaad tukado oo salaadaas ay noqoto mid wanaagsan, waxay u yeedhanaysaa soon bay u yeedhanaysaa, ukhtaha walaasheed bay u yeedhanaysaa, soonkiibaa sadaqa usii yeedhanaya. mid walba marka mid buu u yeedhan. maxaa jira qofkiibaa noolaanaya. haddii laakiin qofkii macsiyadii ay ku dhacdo, iyadana dembi hadduu tusaale kasoo qaad waxyaabaha daroogada iyo khamrada hadduu cabo, waxay u yeedhanaysaa zinadiiba u yeedhanaysaa. zinadii marka qatliba iyo dilba usii yeedhanaysaa. marka midba mid ayay usii dhiibaysaa. ibnu qayim raximahullah wuxuu yidhi idaa aqbala alcabdu calaa taacatin, waa arrin cajab badan. haddii qofku daacada uu soo qaabilo, bacatha allahu lahu sawaarifa liyatabayana sidquhu, si ay qofka haddii daaca uu rabo waxyaabo ayaa lagu sii daynaya. maxaa jira daacada iyo shayga fiican makaarih waxyaabo xunxun baa dhinacyada kaga gadaaman. sida xadiidka saxiixa ahaa, jannadii waxaa lagu gadaamo afarta dhinac jannada laga dhigay waxyaabo naftu ay neceb tahay. naartiina waxaa dhinacyada laga dhigay wax naftu jecesha. balo fiirso. marka sidaas daraaddeed ayaa sawaarif baa jira, waxyaabo kaa leexinaya daacadii baa lagugu soo daynayaa. sababtu waa maxay? liyatabayana sidquhu min kadibi, si ay qofka u muuqato runtiisa iyo beentiisa u kala muuqato, loo kala garto baa wax lagu sii dayn. faidaa jaahada wa sabara wa thabata, haddii marka qofkaasi dadaalo, uu sabro oo uu sugnaado, sawaariftii iyo shaygii lagu soo daayay baa xaqiisa waxay isu bedelayaan mucaawanaatin cala taaca, kuwa daacadiiba gacan ku siiya. subxaan allah. bal u fiirso. shaygii markii hore ah inuu kaa leexiyo baa marka dambe markaad sumuuddo ood is adkayso
ood sugnaato ilaahay xaqa kugu sugo ayaa waxay isu bedelaan iyaga naftoodii kuwa gacan kugu siiyaba daacadii inaad fuliso. marka arrinkaas runtii waa arrin aad iyo aad muhiimadeeda u leh. macaasidu way isdhashaa, daacaduna way isdhashaa. aan ka fogaano macaasida biidni illaahi tabaaraka watacaala, intaan awoodno aan kasii fogaano. waliba inta awoodo laguma dareynaya wixii xun ha laga joogaa la yidhi, laakiin waxa inta la awoodo la sameeyay waa khayrka oo fattaqu llaha ma statactum. wanaag iyo daacad iyo khayrkana waxaan awoodno aan samayno. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum wsala allahuma wasalam calaa nabiyina wsaxbi ajmaciin.